waxaan kaga sheekeynaya qiso idinkana waxaa idinku xijaysanaa inaa ii sheegtaan qisadan meesha ay ku jirto qur-aanka iyo suuradda ay ku jirto. hadda kahor waxaa jirtay 2 nin oo saaxiibo ahaa. 2da nin midkood ilaahay wuxuu siiyey 2 beer, beertiisana wuxuu ka dhex talaalay mirooyin fara badan, sidoo kale ilaahay wuxuu uga dhex jeexay 2 webi. marka beerihiisa waxay keeni jireen mirooyin aad u badan. markaasuu saaxiibkiisii kale buu u faana, saaxiibkiis uu u faanaya marka waxaa waaye qof oo muslim ah oo ilaahay aaminsan. midkaa laakiin inta la siinaayo ilaahay ma aaminsano. wuxuu ku dhahay anaa kaa xoolo badan oo kaa ilmo badan. markaas wuxuu intuu galay beerihii ilaahay siiyey wuxuu yidhi beertan u jeedaa uma malaynayo yidhi tan inay baaba'ayso, xataa haddii qiyaamaha dhacdo yidhi ilaahaygi midda tan i siiyey mid ka badan buu i siinayaa. saaxiibkii wanaagsanaa oo ilaahaygi yaqaanaa wuxuu yidhi ma waxaa ilowday allihii ku abuuray oo carro kaa abuuray oo carraba ku ka abuuray kadib haddana candhuuf ka abuuray, candhuufka intuu kaasii bedelay kuu simay kaa yeelay qofkan dhan ee toosan kaa yeelay. bas ninkii wanaagsanaa wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa in ilaahay subxaana watacaala ay siiyo mid beertaada ka wanaagsan, beertaadana uu ilaahay baabi'iyo. sidii bay noqotay, ninkii beertiisii way baaba'day. markaasuu wuxuu ka shalaayay xataa wixii uu geliyey. qisadan xaggee bay ku jirtaa? sidoo kale aan kuu sii jilciye waxay ku jirtaa suuradday ku jirta aan tusaale yar ku siiye. suuradda waa suurad 7 beri isbuuca maalin ka mid ah la akhriyo. salaam.